kadib sanado badan oo aan qorsheynayay booqashada magaalada Kismaayo waxa ay suurto gashay inaan imaado waxaana booqday goobo badan oo cajiib ah kuwaas oo si weyn looga yaqaan guud ahaan deegaanada Soomaalida intii aan joogay Kismaayo waxa si weyn ii soo jiitay deegaanka xeebta oo mid ay isugu yimaadaan guud ahaan dhalinyarada magaaladu kuna qaataan waqtigooda waxaana ay dhalinyaradani ka waramayaan dareenkooda fariinna waxay u direen qurba joogta Soomaalida deegaanka horta waa deegaanka saa u jeedo waa meesha kubadda ku dheelno saa u jeedo waa doogan dekadi xeebti dakhliga ilaahay uu nasiiyay iskaga dhex jirnaa kubaddana iskaga ciyaarnaa dad dhalinyaro Kismaayo joogana waana marka dalkaagii waxa la yiri dad lahayn dhaxanta kaama celiyo dalkeena joogna alxamdulillah waan ku faraxsanahay ma sha Allah marka waxaan ku soo dhaw hadda asxaabta ku daawanaysa rabaynay Kismaayo marun imaadaan ama dadkii hore ugu noolaan jiray fariinta u diraysa maxay tahay iyo fariinta u diray waxa Kismaayo waa horta waa caasimadda saddexaad ee dalka Soomaaliya ma sha Allah dad aad maartay oo cimilo fiican oo maartay xagga hawan ilaahay siiyay magaalo xeebeed fiican ah dee u jeedaa umaleyn buurahan kaama qarsoon iyo quruxdan ما شاء الله وحالي كسو دوا دلكينو suuqyada kala duwan ee adeega ayaa kuwa sameeyay horumar ballaaran waxaana markaa joogtid suuqyadani ay yihiin kuwa aad ka helayso adeegyo cajiib ah oo la mid ah dunida asxaabta halkan aan joogaana waa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee magaalada Kismaayo ayuu ahaan markii ugu horeysay magaalada Kismaayo runtii taas waxa ay sameynaysaa farxad gaar ah arinta kalena waxay tahay in abkayga Waafi aan meel laba igaga hadhay runtii magaalo kasta iyo meel kasta oo dunida ka tagana oo wax badan ii fududeeyay hadda aniga ku sugan magaalada Kismaayo si dhib yar waxaan lacagta ugu bixin doonaa abkayga Waafi adigana daawada meel kasta oo caalamka ka joogto waxaan filayaa in sida noloshayda uu fududeeyay Waafi adigana uu fududeyn karo guud ahaan Kismaayo waxa si weyn ii cajab galiyay in bulshada gaar ahaan dhalinyarada magaaladu ay si weyn u xiiseeyaan ciyaarta kubadda cagta waxaana badi daayirtu ay yihiin kuwa meel walba ku ciyaaraya wana sababta magaalada Kismaayo ay caan ugu tahay ciyaarta kubadda cagta ciyaaryahanno cajiibana ay uga soo baxaan haatan waxa safar qaatay daqiiqado badan aan uga baxnay magaalada Kismaayo waxaana soo gaarnay deegaanka Goobweyn oo si weyn caan ugu ah dalxiiska iyo beeraha halkan asxaabta waa deegaanka Goobweyn oo 13 kiiloomitir ama 13 kiiloomitir u jirta magaalada Kismaayo waana duleedka magaalada Kismaayo goobtani runtii waa goobta ay isaga darsamaan webiga Juba oo biyaha halkan keenay isla markaasina ku dara badda waxna deegaankani uu yahay deegaan aad iyo aad u cajiib ah isla markaasina ku haboon dalxiiska iyo in la yimaado runtii deegaankan markaad joogto waxa dareemaysaa in goobtu ay tahay goob aad iyo aad u cagaaran oo aad iyo aad u qurux badan deegaanada noocan oo kale waxay ku wanaagsan yihiin maalgashiga waxna yihiin deegaanada kor u qaadaya bilicda iyo quruxda magaalooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo magacaaga أحمد جيل عبدي وكم قاعد أردو جوبين ما شاء الله أحمد دوبي بروح نقول رتها السداء يدق قدان أما وي بسان قنبهني ما شاء الله نواي بنا جمعيه قميصتنا ولو إمادا وحي مرتي وسوير النوع إمادا دويلان جارسية وحي مركز دلنيرة معقولة أنقرنا إنه سيد دلنيرة أن هبل سيد إنك عملنا وانسينا وحي كلام معقولة مركز سيد أنكسو دوينين وكسو دوينا ما شاء الله نيو بقول وكما رقمنا صبحي وسوق لهنا وان دخلنا وحولان كلنا بيريان دح جوجنا تلقيني أنا احتاجنا وابو جدا تسيتابسي الله بالكنا hore waxaad igu sheegtay intii aanad beerta shaqadeeda bilaabin inaad darawal ka ahayd gaari balse aad iska daysay sababtu maxay tahay waxa u daayay waxa arkay ma sha Allah kheyraadka dhulka inuu ku jiro aan orod wax lagu raadin karin wakaay beertaydi aan dhaxtagay oo hadda tabcado maanta aan ka kaafto amabo inaan saf baawur safriyo imse sanad beer lahayd ما شاء الله أبيه كان كدحله imse sanad فليس ما شاء الله أنا هذا كري شخصي أنتي ده وحن جوجا أفر سنة شخصي أنتي ده وي هذا كدم بينه حروا كي أن سيد بينهم كده إحنا ولانه runtii waxyaabaha aan ku arki jiray geedkan waxa ka mid ah xeebaha qaaliga ee dunida iyo wadamada adduunyada balse halkan wadamada adduunyadana maaha xeebihii dunidana maaha waa Goobweyn waa Kismaayo qumbi hadda nala soo jaray hadda ayuuna cabeynaa beerihii dalkan joognaa waa ku dalxiis dalkaagu hooyaysa وقت سلاد صبح دواء ما قرطة ما شاء الله aad ma santa وقت عرفته dhalinyarada raba inay beera samaystaan ee qurbaha ku nool
maxaad leedahay fariinta u diraysaa maxay ما شاء الله ولا لو dhalinyarada farniin waxa u diraya horta dhalinyaro badan oo iga tagtaa jirta oo dibadii dhulka aado hadda qayli laga soo yeeriray intii hadda aan baxay intii ay maqan yihiin inta hadda aan wax qabsaday anaaba dhaama markii la isku fiiriyo nin waxaan leeyahay wax alaal waxa soo aruursatay inigoo maqanyaan laga soo xawiiline oo la soo masaafurinine dalkii wax ka qabsada in allaala ninkii dhinacaas ugu sokeeya dhinac ka tabcada diyaaraan waa deegaankan aan joogaa sad horeba idinku sheegay waa deegaanka Gooweyn oo 13 kiiloomitir u jira magaalada Kismaayo internetkayga wali si fiican buu uga shaqeynayaa wana tahay saamaxdeen si dhib yar abkayga waafi u isticmaalo isla markaasina adeegii aan beerta ka gatay saaxiibkay Dhuugo aan ugu diro telefoonkiisa lamarka lacagta Dhuugo lamarkaaga ii sheeg 531 waxaa soo baxaya Dhuubow Geela Cabdi ما شاء الله أصحابته وضع ركتان ودوبة وجيل عبدي أبكي وافقنا استعمالها وأنا جاود دري العكسيس هل كان شوقنا وديجان كم أحسن مقالة كسمايو runtii abkan haddaanan haysan wax badan ima suurtagalin dhuubaynayna wax ka iibsada ima suurtagashay somaa mar kale waxaan dib ugu laabanay magaalada Kismaayo waxaana aan u jeesanay mid ka mid ah goobaha sida weyn caanka ugu ah iibinta xalwa Kismaayada oo magaaladu si weyn caan ugu tahay waa markii ugu horeysay aan imaado magaalada Kismaayo oo in badan aan maqli jiray ayubahan noloshayda waxyaabaha balse ay caanka ku ahayd magaalada Kismaayo waxa kamid ah xalwadani magaalada anigoon iman ayaa xalwadan ay bartay maadaama xalwadan aad u jecelahay magaalooyin badan iyo goobo fara badan oo aan tagan aad ugu cuno maanta xalwa Kismaayo gacantaydan ku haya tanana waa tan waan dhamin doonaa runtii dhadhankeedu xitaa waa ku duwayay dhadhamada kale ee xalwadaha lagu sameeyo magaalooyinka kale tan waxa ku tusaysaa sababta ay gaarka ugu noqotay xalwadani magaalada Kismaayo dhanka kale guud ahaan magaalada Kismaayo ayaa mid sameynaysa horumar ballaaran oo dhismaysa si weyn wadooyinka cusub ee magaalada ayaa iyaguna ka qayb qaatay fiditaanka iyo socodka gaadiidka oo fududaada asxaabta halkana waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan ee magaalada Kismaayo saad arkayso halkaas sare waxa saaran balooni ama kubad baa saaran waana waxyaabaha ay caanka ku tahay magaalada Kismaayo badi gelinka dambe ama gooraha dambe casarkii waxaad arkaysaa dhalinyar fara badan oo balooniga aadka ugu ciyaaraya goobaha kala duwan ee magaalada haddii ay noqoto garoonada kubadda cagta iyo xeebtaba waxaana ay taasi ku tusaysaa sida deegaankan iyo magaalada Kismaayo looga xiiseeyo ciyaaridda ama dheelidda kubadda cagta maalmo kooban ku sugnaa Kismaayo waxay ahaayeen kuwo cajiib ah oo aan ku bartay deegaano badan oo noloshayda aan jeclaa inaan booqdo sida Gooweyn iyo kuwo kale badan muuqaalkan ayaa ka mid ahaa muuqaallo badan oo ka sameynay horumarka ka socda magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida filo dhawaan daawade muuqaallo kale oo cajiib ah oo aan idinku tusayno deegaano iyo magaalooyin cusub ku xidhna waa iib show lana soco muuqaal cusub